Asalaamu calaykum, waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran channelka. Waxaan doonayaa muuqaalkan inaan idinkula wadaago 10 tallaabo oo kaa dhigaya inaad noqotid qof leh shakhsiyad xooggan oo isku kalsoon. Sidaan ognahaba, qof waliba oo inaga mid ahi waxa uu jecel yahay inuu noqdo qof leh shakhsiyad xooggan iyo sifooyin qaas ahaaneed oo isaga u gaar ah, laguna aqoonsado isla markaasna lagu ixtiraamo shakhsiyadiisa oo aanay cidina ku soo xadgudbin naftiisa iyo noloshiisaba. waxa uu qof waliba jecel yahay inuu si buuxda u hantiyo una maamulo naftiisa iyo noloshiisaba. boos weyn oo u qalmana uu kaga jiro bulshada dhexdeeda. waxaa aad u fara badan talooyin iyo tillaabooyin haddii aad ku dadaasho aad ku noqon karto qof leh shakhsiyad isku kalsoon oo isaga u gaar ah, loogana dambeeyo arrimihiisa iyo howlihiisa shakhsiyadeed, laguna ixtiraamo. muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 10 talo ama tallaabo oo horey loo tijaabiyay run ahaantii. haddii aad nafsadaada ku dabaqdana kaa dhigaya qofkaas aan soo sheegnay ee naftiisa iyo noloshiisaba ku kalsoon, shakhsiyad isaga u gaar ah oo dadka kale uu kaga duwan yahana yeesha. qodobka koowaad waxa weeyaan xiriirka aad la leedahay alle, yacni xiriirka Allah kaala dhexeeya wanaaji. naftaada waxaad ku xirtaa Allah subxaanahu wa tacaala, kuna dadaal inaad gudato waajibaadka uu Ilaahay ku saaray iyo camal waliba oo wanaagsan oo alla kuu dhaweynaya. waayo waxay aasaas u tahay inaad hesho deganaan iyo shakhsiyad isku kalsoon, iyo inaad hesho raaxo nafsadeed iyo kalsooni buuxda oo aad ku qabtid rabbigaadu inuusan marnaba dayacaynin rajooyinkaada iyo riyooyinkaada, sidaadan aadba u dayacin waajibaadka iyo xaqii uu isagu kugu lahaa. qodobka labaad waxa weeyaan noqo mid mar waliba ku kalsoon awooddiisa shakhsiyadeed iyo hibooyinka uu Ilaahay siiyey ee aad kaga duwan tahay dadka kale. xaqiiqso in aad tahay qof nool oo waxtar leh, cid walibana la tartami kara. midka saddexaad waxa weeyaan waa inaad hanataa gebi ahaanba mas'uuliyadda naftaada. dadka guulaystay ee nafahooda iyo noloshoodaba meel mariyay, waxaa jirta hal sifo oo ay iskaga mid yihiin ama ay ka siman yihiin, waana inay u istaagaan inay mas'uuliyadda naftooda iyagu ay qaadaan oo aanay cidna ka sugin inay beddesho oo ay kor u soo qaado. haddii uu qaladi kaa dhaco, ha u sameynin marmarsiyo ee u istaag sidaad iskaga ilaalin lahayd inaadan mar dambe ku dhicin isla qaladkii oo kale. isku day inaad naftaada barbaariso oo aad wanaagga ku beerto, wax waliba oo dib kuu dhigayana aad ka fogaato. waddo walba ee aad horumar ku gaari karto, guulna aad ku xaqiijin kartana aad horay u qaado. qodobka afraad waxa weeyaan qof walba ha raali gelin, yacni ha isku dayin inaad cid waliba aad raali geliso. waayo guuldarrada iyo fashilkuba waxa uu ka bilowdaa marka aad isku daydo inaad qof waliba raali geliso oo arrimihiisa aad ka hormarisid kuwaada, naftiisana aad ka hormarisid naftaada. qof walba wanaaji oo dabeecad wanaagsan ula dhaqan, laakiin ha isku duleyn qofkaas, hoosna ha isku dhigin. waayo dadkuba waxa ay liidaan oo ay yeesaan qofka inta badan isagu ihtimaamka siiya ee daneeya. sidaas darteed ku mashquul naftaada iyo danahaada intii aad ku mashquuli lahayd inaad raali geliso oo maalin walba ka fikir lahayd qof kula mid ah. haddii aad ku dadaalaysid cid raali gelinteeda, waxaad ku dadaashaa raali gelinta alle, waayo midaas ayaa darajo adduun iyo mid aakhiraba aad ku helaysaa. qodobka shanaad waxa weeyaan naftaada waxbar. waxa keliya ee shakhsiyadda bili kara ee kor u qaadi kara waa aqoonta iyo tacliinta. waxa ummadaha caalamka kuwana dayaxa ay u gaareen, kuwaasi waxa ay soo saaraan ugu hoos nool yihiin ee loo kala darajo duwan yahay waa aqoonta. naftaada waxbar, yacni hadda bilow baro luqad cusub, ha noqoto oo faa'iido kuu leh, wax akhrinta ama wax qoridda ama farsamada gacanta, yacni xirfad walba, teknoolajiyad wixii ay ahaataba, yacni xirfad adiga kuu qaas ah oo noloshaada iyo shakhsiyadaadaba aad ku horumarin karto inaad barato. meel walba cilmiga ka raadi, waxbaar, yacni internetka tusaale ahaan aad waqtiga badan ku lumiso ee sida bilaashka ay aad kor iyo hoos ugu jirtay, waxaad u beddeshaa inaad aqoon raadis iyo cilmi kororsi aad u gashid oo aad u beddeshid. waxaad arkaysaa muddo kooban adiga oo wax badan bartay, cilmi badanna uu kuu siyaaday. markaas ayaad waxaad bilaabaysaa inaad caadooyin iyo dhaqamo aad horey u lahayd iska joojiso, yacni oo aan wanaagsaneyn, kuwo kale oo cusubina aad noloshaada aad kusoo biirisay. qodobka shanaad waxa weeyaan wax weydiisiga badan ka waantow. dadka looma bandhigo baahiyahaada shakhsiyadeed, waayo marka qofku uu arko inaad wax weydiisanayso oo aad u baahan tahay, isla markaas ayuu bilaabaa inuu ku dhibsado ama uu ku liido. taasina waxa ay dilaysaa oo ay hoos u dhigaysaa qiimahaada qofeed iyo middaada shakhsiyadeedba. midna aan kuu sheego, qofka marka koowaad wax weydiiso, yacni hal mar wax weydiiso,
mar labaad si ha weydiin. Marka hore waxa aad tusisay inaad u baahan tahay, marka labaadna waxa aad dareensiisay inaadan ogolaanin in lagu dulleysto oo aad u dullowdo oo baahidaadu ay halkaas mar ay ku ekeen. Waa ku bartay mahadsanid. Qodobka 7 waxa weeyaan qowlkaada iyo ficilkaada iswaafaji. Ballamaha aad naftaada ka qaado oofi. Tusaale ahaan, haddii aad dhahdo waxaan rabaa inaan jimicsado si aan jirkeyga iyo caafimaadkeygaba aan uga taxadiro, waa inaad oofisaa oo aadan ka caajisin. Dadka leh shaqsiyadda qawiga ah ee xoogan waxa ay oofiyaan ballamaha ay nafahooda ka qaadaan. Qodobka 8 waxa weeyaan wax aqri. Aqrisku waxa uu bilaa qofka waxana uu koriyaa maskaxda, wuxuu ka dhigaa qof si xeel dheer u fikira, dadkuna ra'yigiisa iyo talooyinkiisaba ay qaataan. Wuxuu ka dhigaa qof isku kalsoon oo wax badan og. Haddaba noqo aqriste wanaagsan oo naftiisa anfaca. Qodobka 9 waxa weeyaan nidaami howlahaada iyo arrimahaada. Noqo qof nidaamsan muuq ahaan iyo maskax ahaanba. Arrimahaada inta karaankaaga ah xafido, sirahaaga qarso. Dadku yaanay wax badan aanay ka ogaanin. Naftaada iyo noloshaaduba ha noqoto wax adiga kuu qaas ah oo adigu maamulkeeda aad hayso. Waayo qofka waxa laga jeclaadaa hiba ee laga daneeyaa waa intiisa qarsan. Haddii qof waliba uu si fudud ku ogaado, waxaa yaraanaya inaad qof mukhtalif ah oo dadka kale ka duwan aad noqotid. Qodobka ugu dambeeya ee 10aad waxa weeyaan go'aan. Noqo qof go'aan leh oo go'aamadiisa ku qaata kalsooni iyo dhiiranaan. Dadka kala tasho arrinta aad rabto inaad markaas ku dhaqaaqdo oo fikradahooda ixtiraam, laakiin go'aanka u dambeeya adiga ayaa iska leh. Inta aadan wax go'aansan si xeel dheer oo caqliyeysan u fikir, kadibna go'aankii ugu dambeeyay qaado kuna dhaqaaq fulintiisa. Guntii iyo gunaanadkii waxa uu Ilaahay ka dhigay qof nool oo qiimo islaamnimo iyo mid bini'aadamnimo leh. Caqliga iyo cilmiga uu Ilaahay ku siiyay uga faa'iideyso sida ugu wanaagsan. Hana aqbalin daciiftinimo iyo in lagu liido. Noqo mu'min qawi ah oo isku kalsoon. Riyooyinkaada iyo rajooyinkaadana gacantaada ku dhiso. Ha ka sugin qofna inuu kuu dhabeeyo ahdaaftaada oo uu kor kuu qaado. Ilaahay tala saaro oo fadhiga ka kac, horeyna u soco.